gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ahna gudoomiyaha urur siyaasadeedka wadan iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golahaasi mudane Dr. Cali Aw Yuusuf ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib markii ay soo dhameysteen safar shaqo ay kaga qayb galeen dalka Namibia shir halkaasi ka socday gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport ugu waramayay warbaahinta ayaa ka waramay shir ay kaga qayb galeen wadankaasi iyo kulana gooni ah oo ay la yeesheen ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka ee wadanka Namibia gudoomiyaha Cirro waxa uu si qoto dheer uga waramay waxyaabihii ay kala hadleen mas'uuliyiinta sarsare ee wadankaasi taasi oo ay hormuud ka ahayd iskaashiga labada dal dhinaca dhaqaalaha horumarinta iyo sidoo oo kale dhinaca nabadgelyada gaar ahaan daryeelka kobcinta iyo wuxuqabadka ciidamada booliiska Soomaaliland iyo tababaro loo furo gudoomiyaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo sheegay in safarkoogaasi ku soo dhamaaday guul ayaa warbaahintu waxa ay weydiisay su'aal ku saabsaneyd siyaasiyan xidhiidhka gaar uga dhaxeeya xukuumadda isaga oo ah xisbi siyaasadeed ama urur siyaasadeed oo loo yaqaan ururka siyaasiga ah ee wadani gudoomiyaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa sheegay in aanay siyaasadu ahayn ama mucaaradnimadu ahayn mid duminta qaranka looga goleeyahay balse ay tahay dhisida iyo horumarinta qarankan waxaanu mudane Cirro isagoo ka hadlaya arintaasi yiri urur aan la xirtay jiray ururka Soomaaliland baada wadani halkan iyo ururadaas waxa gaaro aniga shakhsiyan xukuumadda naga dhaxeeyay jiraan waajibaad baan ka leeyahay golaha iyo xukuumaddu waxaan rumaysnahay in goluhu waajibkiisa ka soo bixi doono mar kasta oo loo baahdo waajibaadkiisa waxa ka mid ah in xukuumadda hubiyo ay shaqooyinka qabanayso waxaan qabataa uu ku taagan yahay goluhu haddii jirto dee mar leeyahay xukuumaddii faraha laga qaaday ma garanayo laakiin waxaan qabaa oo waajibaadkiisu in xeerar sameeyo weeye ugu badan واجبكان أو كصاب حي حكومة يهدي اللي هي يقولوا ما يمرمن بس هذا الشيء سومال هذه مرة ربعان هاي لأن كل مرة كوبها مرة كاسبعيو لكن واحد ما يسمح كل سنة بحنا قبا إن قالوه وهي حكومة وخلطان في القبانية